aragtida fayoobi samaha kama dhoohane qaranka dhismayay arkaan la dhagax dhigayay arkaan dhammaystirmayay arkaan 2022 inaad si rasmi ah xadhiga uga jarto mudane madaxweyne maktabadda faa'iidadeedu waa taa maamulaha maktabaddu warbixinta ka siiyay maktabaddan waa tii nooceeda ahayd dalka laga hirgeliyo fikirkeeda runtii dhalinyarta aqoonyahanka gobolka iyo maamulka dawladda hoose Gabiley baa lahaa buddiga ay ku hirgashay dawladda hoose Gabiley baa runtii lahayd mudane madaxweyne meesha quruxda badan ee community development center ka waxa ku baxday lacag ilaa $700,000 ah lacagtaasi oo aanay dalal iyo hay'ado midna waxba ku lahayn buddigiisa koobaad ahayd cashuurta dadweynaha reer Gabiley ay bixiyaan oo lacag u dhiganta $300,000 markii aanu diyaarinay ee aanu miiska saarnay aanu shaqada bilownay kadibna dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay doorkeeda ka qaadatay khaasatan wasaaradda waxbarashada oo aad iyo aad ugu mahadcelino oo lacagtii lacag la mid ah runtii nagu caawisay sidoo kale ganacsatada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo 3 ganacsado runtii aan halkan uga mahadcelino iyaguna qaybta saddexaad lahaa Dahabshiil Telesom iyo Maxamed Awsiid resource-ka lacagtu waxa soo raacayay dumar qurba joog oo gobolka dalka Ingiriiska lacag looga soo diray intaa bay runtii lacagta ku hirgashay ay ka koobnayd marka hore wuxuu baan ku tala gashay in akhris laakiin maanta faa'iidada maamuluhu ka warramay bay runtii maktabaddu keentay waxaana tusaale u tahay dalkeena haddii aynu isu tashanno in la sameyn karo waxaan iyo wax ka badan wafdiyo kala duwan oo heer caalami ah imi Mareykan Ingiriis igad meelo kala duwan baa laga yimi aad bay ula yaabeen dhismayaal noocani inay ku yaalaan Soomaaliland waxa kale la sii yaabeen inaanay iyagu waxba ku lahayn iyagoo isu tiriya xoogga dhaqaalaha adduunka runtii waa kugu hambaleynaa madaxweyne runtii waxaanay tusaale weyn u tahay runtii dadaalka haddii aynu isu tashanno la qaban karo dhiska noocaas runtii quruxda leh dhisaankiisa iyo hirgelintiisaba waxa iska lahaa dhalinyaro aqoonyahan oo reer Soomaaliland waxa laga yaabaa marka saa loo eego in la islaam laha waxa ajaanib baa dhisay niman shirkad asli layla oo construction company muwaadiniina dhalinyaro aqoonyahana baa design-kan hirgelintiisa iyo dhismihiisa lahayd inaad maktabadii gobolka Gabiley ay toos u yimaadaan halkan oo ku soo majiirtaan oo dawlad deegaanka Soomaalidu ay ka mid tahay iyo qurbo joog iyo dalalka caalamka waftiga Mareykan noo yimid kuwa igada noo yimid Djibouti baa noo ka yimid way soo boqdeen cali inagana qoladeen reer bari waxaan u maleynayaa tusaale inoo tahay artaas tusaale waxaan bay inoo tahay oo waftidan balaaran uu hogaaminayo inaan maanta soo boqono casriga ah ee caanka ah ee Gabiley ee dalkeena oo dhan uu ku faano oo runtii aynu maanta joogno oo quruxdeeda iyo kutubta taala iyo dhismaheeda iyo qaybaheeda kala duwanba runtii ay tahay wax aad dalka oo dhan ugu faanayo dawladda hoose iyo dawladda dhexe iyo cidii kale ka qayb qaatay community-gaba aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa meeshan oo kale library maktabad waa xarun cilmi doonayo horumarku wuxuu ka yimaadaa aqoonta idina iskama horumarto iyagoo waxba garanayno jahalaa adduuna la iskama helo dallama horumaro marka waxaan joognaa centerkii horumarka iyo halku ka bilaabmay wanaaga dhashay arkaan nimciya dhalag bay arkaan qaranka dhismayay arkaan la dhagax dhigayay arkaan dhammaystirmayay arkaan wanaaga dhashay arkaan nimciya dhalag bay arkaan dhacayaha aragtida fayoobi samaha kama dhoohane dhacayaha aragtida fayoobi samaha kama dhoohane qaranka dhismayay arkaan la dhagax dhigayay بسم الله الرحمن الرحيم ولا ورمي تاريخ ذا iyo technical si loo dhisay halkan laakiin waxa jira factor ki hirgeliyay inta uu ka duway meel walba jirta meel sano kale loo buro la qaban kara ama meel ku haboon in dhaam laga qabta ama hawl kale qaran in laga qabta dhulka meelo badan iyo badankiisa uu leeyahay sirta uu ku hirgelay waxa weeye
dadka deegaanka ayaa qaatay amarkii la siiyey mashkaladdu intaa wax kale maaha meel walba way talaacayn kare dadka iminka hadday saa amarka u kala qaataan meel waliba wax walbaynu qaban karaa laakiin bele waxay ka joogtaa mashruucii markuu u baahdo maanta iyo berri iyo bilo kana maslax kana raaligeli dee ninkii maba arkaya fishankii kulama arkaaye marka haddii la ismaqlo oo dowladdu iyo dadkan hawsha wadaa fishan bay keenayaan wuu qaldami karaa oo bini aadmeenna wuu hirgeli kari waaya dhaliil baa ka soo bixi karta waa la saxaya kii waxaa loo bahay in lasku kalsoonadana waxaa waynu qabsanaynaa qaladkana waynu saxanaynaa wixii inaga weydanaaya waa qadar alla baalkan saa la sheegay gobolka waxaa saaran nadiifintiisa iyo ka warhayntiisa qoladiinii deegaanku waa mahadsantihin dhirtiinii cambaayadda waa ka samarsaan imika baqiina wuu inaga baxay taga dambayna waynu ka wada shaqaynayna haddii inta deegaan nin waliba maalintii 20 dhagax soo qaaduu dhigo buurun bay noqonaysaa jaynuba saas ku shaqaystaa aroor walba qofkii maraya hadduu 5 dhagax halkan dhigo 5 dhagax soo dhigo oo kagala yarkana soo dhigo oo saa dhagaxanta loo dhigo buurtaasaynu soo rarayna biyuuna way noo joogayaan dowladdu yaa lagu halayn wax ummadda ka xoog badan inuu isbaqalo weey marka ka qayb qaadasho inuu halkan buurta weyneynana aan ku soo tala galo mustaqbalka aad iyo aad baa mahadsantihiin wassalaamu waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu maanta aragno horumar ballaaran iyo wanaag ka socda degmada Gabiley oo ka mid ah degmooyinka ugu mudan dalka hadday wax soo saar noqoto iyo hadday noqoto kaabista qaranka intaba waxaan runtii ku faraxsanahay inay bulshada ku dhaqan Gabiley iyo meeyarka iyo dawladda hoose si macna leh oo mugla u shaqeynaya waxa kale ee lagu taartaarana waa waxaan badnayn oo ka yimaada xukuumadda laakiin waxaanu ku qanacsanahay in mas'uuliyadda meeyarka iyo dadka la shaqeeya iyo heer gobol ay buuxiyeen intii awoodooda ay kari karaan waa la qiyaasi karaa baahidu waa badan tahay maalinba in baa la sameeyaa maalinba in baa la qabtaa waxa dawladda dhexe ee dalku haysaa waa wax kooban aad u kooban marka loo eego baahiyaha qaranka jira waa ursiis iyo taabasho ayay ku gaadhaysaa maalinba meelun baa la odhanayaa gobol ama degmaa la odhanayaa intaa bal ha la ursiiyo laakiin baahida dalka ka jirtaa way ballaaranta anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha iyo afka xukuumaddaba aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa horumarkaa ballaaran ee aad samayseen dadweynaha reer somalilandna guul baan u rajaynaynaa gaar ahaanna reer Gabiley oo aan leenahay gobolka cagaarraadaatiin waa idin salaamayna maanta waxaynu joognaa munaasabad iyo goob aad iyo aad u qurux badan oo tacabkii qaranka uu ka muuqdo waa biyo xidheenkii boholo qowle Gabiley runtii dee waa aragtaan dhabarkeennan dambe 2 kilomitir ku dhow baa biyo fadhiyaan halkanna biyo xidheenkii baynu taagannahay waxaa ka muuqda tacab weyn oo qaranku geliyey oo uu horseed u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland in badan baa dadku waxay ka hadlayeen maartay si dadka biyo xidheen iyo loogu sameyn lahaa laakiin waxa ka horeysa biyaha soconaya biyaha oogada loo qaban lahaa laakiin waxa ka horeysa horta marka hore intijaabada iyo qorshaha lagu guuleysto kan wuxuu noqonayaa dalka oo dhan tusaale u noqonayaa waana runtii aad iyo aad baa wasaaradda biyaha aan uga mahad celinaynaa madaxweynuhu arrintaa uu ku dhiiriday ee uu horseeday ee maantana lagu guuleystay waxaan doonayaa inaan dhowr arrimood oo yar sheego arrimii farsamada iyo siduu yahay waxa ka hadlay injineeradii waxa la geliyay iyo waxa ka soo baxay aad iyo aad bay u kala weyn waa fishanka iyo aragtida iyo qorshaha marka la isla helo laguna dhiirado saasa de waxa soo kala soo baxaya wax waliba ma ahayn malaayiin doolarna laga fikiro adduunyo kalena laga fikiro marka lacagta horta waa intaa faa'iidadeediina de waa aragtaan iyadoo aad loo hadal hayo waa aragtay oo dad badan hadal hayaan oo leeyahay Gabiley baa hoosta malaayiin looga dhiibay horta waxaan idin sheegayaa imika waxa wasaaradda miisaaniyadda ku jira wasaaradda biyuhu ay hadda qodaysaa oo madaxweynuhu amray 5 dhaamo waaweyn mid waa Caynaba midna waxa weeyaan ceelaf weyn labadaa marka la isku daro lacagta ku baxaysaa way ka badan yihiin kan ood weyne iyo xaaji saalax
oo isna iyana isku gobol ahoo isu jira wax yar laba dhaamo weyn baa laga qodayaa labada marka la isku darana waa isku lacag iyo kan marka dhulkii baa kala jaada waa dhul hawda iyo dhul dibali laga qodayo oo ciidii hoos loo qodayo kana milyan iyo boqolka ayaa deyntaas oo dhan lagu qabtay marka horta lacag Gabiley lagu qarqiyay ma jirtay dhulka iyo geographically iyo nature iyo sida yihiin baa kala duwan laakiin dadka kale oo dhan waa loo qabtay madaxihi kala habane hogaamiye dhiirano ujeediya hadaf laho dadkiisana u hiliyo habsaamin ayaa tahee habsaamin ayaa tahee kuwa jira han yaro cadowga u heeryano boqonaha naga heeraye hulaab xume yuuna dagin kuwa jira han yaro cadowga u heeryano boqonaha naga heeraye hulaab xume yuuna dagin hogaamiye dadweynaho hadaalina horu soco hirdoogliya haraabiyale shacbiga ku hogaamiyo horseedkuna yuu qaldamin hogaamiye dadweynaho hadaalina horu soco hirdoogliya haraabiyale shacbiga ku hogaamiyo horseedkuna yuu qaldamin madaxihi kala habane mudane madaxweyne adiga iyo waftiga ballaadhada hogaaminayso waxaan kuu soo dhaweynaynaa mar labaad inagoo joognaa safarka guda jirna safarkeedii oo joognaa bariishka Shariif Cali mudane madaxweyne runtii aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa bariishkan hirgelintiisa oo ay lahayd xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta oo ka hirgelisay miisaaniyadda qaranka mashruucani wuxuu ka mid yahay mashaariicahaanu degmo ahaan magaalada tirada dadka ku nool iminka waxaan ku qiyaasnay 7,000 waxaanu saadaalinaynaa inay dadku noqon doonaan 142,000 oo qof waxaanu hadda sii qorsheynaa dadkaasi dhulkii ay isticmaali lahaayeen iyo mashaariicihii in dhulkaa la diyaariyo loo diyaarin lahaa qayb buu ka yahay mashruucan aynu hadda joogno oo Shariif Cali ku baxaya iyo dhulkaas magaalada saad ka warhaysaan 4 jiho 3 jiho oo kamida dooxya ka mara hal jiho baa bilaa dooxya saddexda jiho waxaan dareemi karnaa dooxyadu maraan inay laga maarmaan tahay in biriisha laga helo jihada koobaad galbeed annaga dawlad hoos ahaan ka dhisnay waxaana xadhiga ka jiray 2017 safarkiisu ugu dambeeyay madaxweyne Siilaayo biriishkii labaad waa kan oo ay xukuumaddaadu hirgelisay oo maanta aynu joogno gabagabana ku dhow waxa kalena qorshaha ayay ku jiraan marka runtii magaalada Gabiley mustaqbal ahaan imika way noo caddahay 250 jihada ay u socoto facility-ga dadku u baahan yihiin bulsho ahaan intay noqon doonaan waa wax golaha deegaanku diyaariyo maanta miiska saaran cid kastoo timaadaana haddii ay raacdo runtii dadka u fudaydinaya magaalada dhexdeeda 4 xaafadood baa ka dhisan aan u kala qaybinay 4 xaafadood alxamdulillah maanta xaafad walba adeegeeda u dhaqay sariimadeeda
iskuulkeeda hoose dhexe xanaanadii garoomadii extensionkii mustaqbalkuna mashaariicaha runtii kooga ka ah tanaa ka mid marka madaxweyne aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waxaan gaar ugu mahad celinayaa wasiirka howlaha guud ee waqtigii cabdirashiid ducaale qaybkii markaanu qorshaha hor dhignay ilaa hadal uu bariishka haddii aad sidaa u tashateen oo weliba $100,000 ee master balaanka lagu fulinayayna dowladdii hoose miiska saartay waxaad xaq noogu leedihiin qaran ahaan wixii prioritigiina istaraatiijiyadda mustaqbal idin fudaydinaya inaanu idinku tixgelinno saasuu bariishku ku yimiday aad iyo aad baan runtii madaxweyne kaaga mahad celinaynaa shirkadda hirgelinaysay xaaji muuse construction company oo labada bariishba iyadu tartan ugu soo baxday taa hore iyo kanbayna dhisto aad baan iyadana runtii ugu mahad celinaynaa aad baa mahadsantahay